kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kasta naga daawanaysan kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada Soomaali Television oo kaga imaanaya magaalada Minneapolis Minnesota magacaygu waa Liibaan Xasan Quruf barnaamijkan aan ku oga doono waxyaalaha ugu muhiimsan xilligan taagan ama asbuucan dhacay sida aad la socotaan baraha bulshada waxa aad loola dhaxmarayay ama warbaahinta gudo iyo dibadba askari ka tirsan ururka ONLF oo loo gacan galiyay dawladda federaalka Itoobiya oo ay wareejiyeen madax ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya arintaas oo dhalisay banaanbax ka dhacay dalka Soomaaliya qaarkii iyo baraha bulshada oo buuq ka socda ayaamaha kan ayagoo ay ku dhaleeceynayeen dawladda federaalka Soomaaliya arrimahaas iyo arrimo badan ayaan ku soo qaadan doonaa barnaamijkeena kulanti waan daawadayaal mar labaad barnaamijkeena waxyaalaha uga hadli doono hordhiciisa waa soo sheegnay waxaan hadda ka hadli doonaa dawladda Soomaaliya ee federaalka oo aad iyo aad ugu kacsan yihiin dhalinyarada Soomaaliyeed ama shacabka Soomaaliyeed ayadoo ay siisay runtii 100% markii la doorayay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo maxaa keenay in ay dib ka imaado kulligan waa la soconaa sida la socotaanba sarkaal ka tirsan ururka ONLF ayaa dawladda Soomaaliya gacanta waxay u gelisay dawladda Itoobiya arrinkaas oo dawladda Soomaaliya runtii ay mar la weydiiyay ay ka gaabsatay oo ra'iisul wasaaraha la weydiiyay uu ka jawaabay ama uu ka hadlay ninka la Sambalosh balan daawona arrinkaas su'aashii la weydiiyay Sambalosh su'aal issue hadda taagan baan rabaa inaan ku dhex darsado ururka ONLF wuxuu soo saaray bayaan saxafi oo sheegayo in Cabdikariin Sheekh Muuse la yiraahdo laga soo qabtay magaalada Gaalkacyo cadaadad la keenay Muqdisho la keenay Itoobiya lagu wareejiyay waxaanay leeyihiin dawladda Soomaaliya wareejisay marka chance kan oo ka faa'iideysayna caawa la joogay gadaashina leeyahay ma xaman kare hadda noo sheega waxa aad ka qabtaan arrinka la xiriira sarkaalka la sheegay inuu ONLF yahay ee dawladdu wareejisay sidaad la socotaan ba arrinkaas waa arrin xasaasi ah oo ay tahay waqtigeeda iyo goobteeda in looga jawaabo anigoo afwaaya dawladda madaxda qaranka waxa la yiraahdaa hay'adaha sirdoonka u taliya marka hadduu naafduubay waxaan isaga noogu xog ogaalsan dalka amnigiisa arrimaha amniga isaga kaaga jawaabay daawadayaal sida aad la socotaanba kamuusa jawaabin ra'iisul wasaaraha arrinkaas waxaana ka jawaabay laamaha amniga Sambalosh oo yiri arrinka waa arrin xasaasi ah meeshii u haboontay bana looga jawaabaya ilaahay haatan dawladda Soomaaliya arrinta kama jawaabin waa ayagaan ka sugaynaa goorta ay ka jawaabaan iyo askariga sababta loo wareejiyay tan kale aad la socotaanba ayaamaha baraha bulshada ama idaacadaha waxa ka hadlayay xildhibaano ama mas'uuliyiin sare oo ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya oo runtii arrimo aad iyo aad loola yaabo ka sheegayay oo lahaa cadawga koowaad ee Soomaaliya waa Itoobiya marka maanta waxaan rabnaa inaan isweydiino horta Itoobiya ma cadawgeena koowaad ba haddaynu nahay Soomaali kalmadaas rabnaa inaan isweydiino sida aad la socotaanba 77 dawladda militariga ee Soomaaliya iyo dawladdii militariga ahayd oo markaa ka shaqeynaysa dalka Itoobiya dagaal ayay wada galeen dawladda Itoobiya oo markaa gumaadaysay qoomado badan oo ku nool dalka Itoobiya oo ay ka mid tahay Soomaalidu dawladahaas oo dhan waa dhaceen 7 sano ka bacdi dawlad cusub ayaa noo dhalatay waana la socotaan marka waxaan rabnaa inaan ogaano wadan cadowgaaga ah horta ma ku waardiyeyn karaa oo dalkaaga ma joogi karaa Itoobiya waxay ka howlgashaa dalalka Soomaaliya iyadoo oo la dagaalamaysa nimanka la yiraahdo argagixisada ama al-shabaab Itoobiya waxay joogtaa Kismaayo Itoobiya waxay joogtaa Baydhabo Itoobiya waxay joogtaa Dhuusamareeb Itoobiya waxay joogtaa Cadaado Itoobiya waxay joogtaa Muqdisho xildhibaan Sakriye oo runtii hadlay oo yiri cadawga koowaad ee Soomaaliya Itoobiya gobolka Banaadir ayaa Itoobiya ku waardiyaysa hadday Itoobiya cadawgeena tahay dalkeena maxoog bay ku haysataa mise inaga soo gelinay arrintaas waa arrin u baahan looga hadlo Mareykan baynu joognaa Mareykan iyo Russia iyo North Korea conflict baa ka dhaxeeya ma imaan kartaa Russia ama North Korea ama ma keeni karaan White House-ka oo muwaardiyeyn karaan ciidamadooda waa maya cadow hadii la yiraahdo taasaa cadownimo laakiin ninku waardiyeynayo oo askarigiisii ku dagaalamayo ama waxa la yiraahdo ma taqaano ku waardiyeynayo inaad tiraahdo cadowgeyga koowaad
arrintaas waa arrin calaamad su'aal ah oo loo baahan in laga hadlo haddii marka ay xildhibaanada ama wasiirada ama dowladda madaxdeeda oo arrintaas ereygaas isticmaalaya ay leeyihiin xog baan lagu haystaana dee shacabka Soomaaliya inay u cadeeyaan baa aad iyo aad u fiicnaan lahayd tan labaad dowladda federaalka ee Soomaaliya 7 bilood oo dalka Soomaaliya ay haystay wax qabadkii ay qabatay ayaan rabaa wax yar inaan ka tuso ay la daawataan بسم الله الرحمن الرحيم داود waxaa ku soo dhawaatiin barnaamij khaas ah uga hadlayno wax qabadka dawladda hormuudku iyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo muddadii 7 bilood ee xafiiska hayay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo muddadii 7 bilood ee ugu horeysay dawladdiisa wuxuu ka shaqeeyay in dib loo soo celiyo sharaftii karaamadii iyo magacii ay Soomaaliya ku lahayd caalamka waxaana hadda muuqatay in Soomaaliya meel kaste si weyn loogu soo dhaweynayo waxyaabaha ay bulshada Soomaaliyeed aad u riyaaqeen waxa ka mid ah in tiro gaaraysa 114 maxbuus oo ku xidhnaa waddanka Itoobiya waqti dheer kadib dalkooda dib loogu soo celishay waxayna ka soo degeen garoonka caalamiga ee Aadan Cabdulle Cismaan Aadan Cadde International Airport halkaas oo ay kula midoobeen qoysaskooda iyo eheladooda oo muddo dheer ay duruufo awgeed u kala maqnaayeen dawladda Kenya oo isku furtay isu socodka diyaaradaha Muqdisho iyo Nairobi oo laga dhigay toos halka awalkii hore ay ahayd inaad ku hakato wajeer oo baaritaan halkaasi aad ku marto geesta kale madaxweyne Farmaajo iyo xukuumaddiisa ayaa si wada jir ah u go'aansadeen inay dhexdhexaad ka noqdaan khilaafka u dhaxeeya wadamada khaliijka wuxuuna madaxweynaha diiday ballanqaad dhaqaale oo aad u badan isagoo dhowraya sharafta karaamada ciziga iyo dawladnimada ummadda Soomaaliyeed bixinta mushaaraadka ciidanka iyo shaqaalaha kala duwan ee dawladda ayaa noqotay qodob tiir dhexaad u ah dawladda hadafkeedu uu yahay danta dalka iyo dadka sidoo sharaxaya wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Beyle wuxuuna wasiirka xusay in dakhliga dawladda uu kordhay bilowgii sanadkan ilaa maanta inaan mushaarooyinkii wada bixinay waxa yaree harayna ay yihiin waxyaalo si kale oo technical loo bixin waayay taas waxay ku tusaysaa waxa weeye inuu dakhligeeni kordhay dakhligeena kordhayna waxa weeyaan meelihii dhiigaysa oo dhiig joojin lagu sameeyay un bay tahay xukuumadda ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa ku guuleysatay in xafiisyada dawladda laga shaqeeyo waqtiga uu farayo dastuurka waxayna midaas noqotay amaantii ugu weyneyd ee loo soo jeediyay xukuumaddiisa waxaana shaqada dawladda la galaa 8 subaxnimo halka laga baxo 4 galabnimo sidoo kale wasiirka koowaad ee dalka ayaa waqti iyo juhdi badan ku bixiyay kormeerka wasaaradaha la xisaabtanka wasiiradiisa si loo hubiyo in wasiirada waajibaadka qaran ee loo odmaday ay si hufan u gutaan wasiir walba oo ku jira xukuumadda iyo aniga waxaan noo dhaxeeya qorshe aan isku xisaabtan waxa uu leeyahay waxyaabo isaga ama iyadu ay ula heshiisay oo laga rabo inay fuliso oo ra'iisul wasaaraha mustaqbalka aniga iga dambeeya ama madaxda iga dambeysay intay aragto faylashaas ay arki karto oo la dhihi karo waxaas waa la qabtay waxaas waa la qaban waayay sidaas oo kale ayaan aniguna leeyahay qorshe uu madaxweynuhu ula xisaabtamo oo intuu iga qaatay uu haysto uu isticmaalo uu leeyahay ra'iisul wasaare waxaan soo fuliyo waxa weeyaan dhaqan cusub oo aan rabno inaan ugu sheegno ummadda Soomaaliyeed waa wixii aad nagula xisaabtami lahaydeen isdhexgalka madaxda iyo shacabka ayaa aad u xoogaysatay oo hore loogu aqoon dawladii hore madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya iyo ra'iisul wasaarihiisa ayaa badanaa si kadib shacabku ugu booqdaan goobaha bulshada ay isku yimaadaan si ay ugu dhageystaan wanaagga iyo tabashada ay dawladdu u ahaayaan maadaama aysan suurtagal ahayn in shakhsi ay xafiiskooda ku qaabilaan anigana markii ugu horeysay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka aan salaamoyn noqotay farxadna ay tahay amaanna ay tahay waana ku faanaya waa markii ugu horeysay oo madaxweyne Soomaaliyeed aan kula kulmo meel bulsho iskugu timaaday waxaan u arkaa farxad iyo horumar ay wadanka yani ku socdo magaalada ka warama ay sidee waay ya shaqadu waa yartay isku wadi
xukuumadda nabad iyo nolol ayaa guul taariikhi ah ka gaartay soo celinta hawada Soomaaliya oo muddo 26 sano ah laga maamulayay magaalada Nairobi sidoo sharaxayo wasiir dowlaha gaadiidka xukuumadda federaalka Soomaaliya aan xildhibaan ka tirsan golaha shacabka mudane Cabdiraxmaan Kulmiye Xirsi Cabdiraxmaan Dheere waxa uu suura gashay dowladda Soomaaliya ama xukuumadda nabad iyo nolol oo hogaaminayo Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Kheyre iyo gaar ahaan wasaaradda gaadiidka cirka dhulka oo annaga aan hadda odayaal ka nahay wasiiro ka nahay in ay noo saamaxday qaybtii ugu dambeysay ee qalabkii lagu soo wareejin lahaa hawada Soomaaliya in maanta runtii kaawa ay nagu soo wareejisay ayadoo dhameystirmeen guriyihii iyo taawaradii iyo wixii ay dhameystirmeen waxa ugu dambeeyeen ay ahayd runtii raadiyaashan caalamiga ah oo runtii noo saamaxaya inaan dhaqdhaqaaqyada la socono diyaaradaha xukuumadda Soomaaliya oo dejisay qorshe lagu sugayo amniga magaalada madaxda Muqdisho ciidamo loogu magac daray ciidamada xasilinta caasimadda oo howlgalla habeen iyo maalin ay ka wadaan magaalada Muqdisho iyadoo haatan amnigeedu uu ka wanaagsan yahay sidii hore waxaana mararka qaarkood dhacdo in 2 bil oo toos ay magaalada aysan ka dhicin wax qarax ah halka waagi hore ay isbuuc kasta ka dhici jirtay qaraxyo ay ku galaafmaan boqolaal shacab ah oo waxba aan galabsan annaga shabaab iyo shabaabka dawlad diide waa la dirayna hadii la yiraahdo waxaan rabnaa magaaladan labadii maalmood oo la soo dhaafay nabadda iyo nololaha laga helay in si xoogaado in Soomaaliya dhan ku fido Soomaaliya waxa sanad kasta ka taariibaan kumanaan kun oo dhalinyaro ah qaarkoodna waxay maraan saxaraha Liibiya si ay fursado shaqo u helaan dalalka caalamka ah haddaba Ra'iisul Wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya oo intaas ka duulayo ayaa waxa uu balan qaaday inuu fursad shaqo u soo bandhigayo kun dhalinyaro oo ku nool magaalada Muqdisho si ay u helaan fursad shaqo dalkooda hooyo wuxuuna ka codsaday inay soo gudbiyaan araajidooda waxaan gudoomiyaha gobolka Banaadir ugu bishaareynaya inuu berrito warqad ka heli doono xafiiskayga taasoo lagu amri doono inuu shaqaalaysiiyo 1,000 dhalinyaro ah oo degan magaalada Muqdisho waxaa dowladda federaalka Soomaaliya meel wanaagsan u maraysa qorshe lagu doonayo in dib loogu dhiso ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waxaana Muqdisho kulan ku wada yeeshay madaxda maamul goboleedyada iyo kuwa dowladda dhexe iyadoo lagu heshiiyay qorshahaas ay dowladda soo bandhigtay waxaa la dhisay guddi taakuleeya ciidamada xoogga dalka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waqti badan la qaato ciidanka xoogga dalka iyo saraakiisha si uu ahmiyad gaar ah u siiyo amniga dalka oo ah mudnaanta koobaad ee xukuumadda nabad iyo nolol aan halkan ku weymid runtii inaan idin soo booqdo aan arko sida uu nooshihiin idin la ciido waxaan idin sheegayaa inaad tihiin astaantii qaranka maskaxda ku haya qalbigana ku haysta inaad tihiin astaantii qaranka ilaalinayay madaxdii qaranka runtii waajibaadkiina saaran ay yihiin waajibaad aad iyo aad u culus waa markii noogu horeeyay oo madaxweynaha Soomaaliyeed iyo taliyaha ciidanka aan la qadino oo qada sharaf oo noo sameeyo aan la fadhiisano agtiisa ku qadino oo qalbigeena aan uga hadalna isna na dhiirigeliyo waa markii noogu horeeyay aad iyo aad aan u faraxsanahay runtii meeshaas maanta waxaan ka qaadanay niyad karnimo cod karnimo diyaarna waxa u nahay madaxweynaha qaranka Soomaaliyeed ahna taliyaheena guud ahna taliyaha ciidamada qalabka sido in awaamirtiisa aan nafteena iyo dhiigeena dhacankeena u hurno aan dib u soo jeedo dowladda madaxweyne Farmaajo ayaa ku guuleysatay inay xiriir wanaagsan la yeelato hay'adaha bangiga adduunka iyo lacagta adduunka si deymaha Soomaaliya looga cafiyo waxaana shirki London iyo midka jaamacadda Carabta Soomaaliya looga cafiyay deymo fara badan isku soo wada duubo dowladda oo horkacaya madaxweyne Farmaajo ayaa noqotay dowlad kasbatay qulubta shacabka Soomaaliyeed soo jiidatay indhaha beesha caalamka waxaana tirdhaxaad u ah danta dalka dadka iyo diinta waxayna xukuumadda la dirataa dan shakhsi musuqmaasuq iyo cadaalad darro halkaasi ayay noogu eegtay barnaamijkii qaaskan ku eeganay waxqabadka iyo horumarka dowladda madaxweyne Farmaajo daawadayaal sida u jeegay doonto 7 bilood dalka dowladda Farmaajo ay ka shaqeynayso waxyaalaha ay qabatay waa u jeedeen tii ugu dambeysay fiiro ugu dambeeyay waa fiirowga ciidda uu la tukaday dhalinyaradii Soomaaliyeed ee ciidamada dalka Soomaaliya ahaa waana u jeedeen sida ay u qiiroonayeen ama ay u hadlayeen ayadoon weligeedii aalehda aysan dhicin madaxweynaha dalka Soomaaliya soo maray intii burburka ahayd u taga ama ka warqaba ama la ciida ama la sheekaysta ama la fariista oo one by one u wareysta Farmaajo baa arrintaas sameeyay
sidaa la socotaanba baraha bulshada waxaa ka socda dad badan oo mucaarad ah oo raba inay ka faa'iidaystaan arrintan askariga laba dhagax qalbi dhagax aan idhaahdee oo dhacday oo raba inay dalka Soomaaliya iyo dawladda Soomaaliya ku burburiyaan haddaba inagu haddaynu nahay shacabka Soomaaliyeed ama waxgaradka Soomaaliyeed arrinkaas maxaan ka qaban karnaa maxaan ka samayn karnaa arrintaas oo ay ka hadleen odayaasha gobolka Banaadir ayaan rabaa inaad wax yar ila daawataan idinkoo raali waxaan aaminsanahay in laga gardaran yahay oo wixii ay qabatay inta la xaqiray lagu daboolay wax beenaho aan jirin oo dadka lagu mareen habaan lagu jahwariirinay waxaan aaminsanahay arrintaas inay ka dambeeyaan dad dana gaar ah leh oo kursi waayay oo nabadda ogolayn oo dawladnimada ogolayn oo horumarka ogolayn oo raba inay ka ganacsadaan dhiigga ummadda Soomaaliyeed bal ilaahay baan idinku dhaarashay ee waxa ka dhibka badan maxay ahaayeen qaraxyada aad ogeydeen oo ummadan ragaadiyay oo hal qof oo kaligiisa oo walwal aan kuna Muqdisho joogin haddii laga bogsooday maanta 60-70 laga bogsooday oo laga yaabo bil ama 2 bilood inaan qaraxba dhicin hadeerna aan u sii socono intaas ka sii wanaagsan haddii Allah idmo war ma waysan mudnayn ilaahay inaan ku mahadino ma waysan mudnayn dadkii ka shaqeeyay inaan ku amaano waryaa Soomaali haddana runta aan sheegno war ilaahay aan ka baqno dadka najaah wareerinaya oo 27 sano rabaan inay dhiiga dadka Soomaali ka ganacsadaan qaraxyada waxaan aaminsanahay markii qaraxyada suuq waayeen oo loo waayay meelay maraan oo baareen qaraxyadii dadka ka shaqeeya qaraxyada inay social media waliba baraha warfaafinta baraha warka lagu fidiyo oo bulshada inay adeegsadeen aaminsanahay waxaan aaminsanahay kuwa qaraxyada sameeyay markii qaraxyadii baareen ay soo waayeen inay dagaalka u bedeleen baraha bulshada si dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed soo horkeeno cajis loo galiyo shaqada dawladda waxaan aaminsanahay inay yihiin kuwaasi cadawga Soomaaliyeed waxaan rabnaa Soomaaliyey inaad ilaahay ka baqdaan cadaaladna aad samaydaan ninkii waddanka dhib ku ah wajacaabud hagelinida waddanka dhib inuu ku yahay sheega ninkii waddanka wanaag u horseeday ama tagtiisa iyo nasiibkiisa ha noqoto ama taladiisa iyo tabartiisa ha noqoto ilaahay ninkuu markuu waddanka yimid uu waddankii degay oo isbedelana ammaanta ha uga boqolinina ducada ha ka xastinina faanka iyo haddii alla kuu rooya nashaadka iyo shoobka dadka waxbay u gashaayeen sheega ilaahay ka baqa farmaajo aad buu nasiib fiican yahay aad buu nasiib fiican yahay maalintii horeysay oo sanadkii ma garanaysaa aan u malaynahayo 2000 iyo inay ahayd ma garanaysaa 12 ay ahayd aan u malaynahayo markuu halkan yimid 6 bilood ra'iisul wasaaraha ka ahaa ayadoo waddankii degay oo isbedelay ayaa cadaalad darro lagu sameeyay cadaalad darradii lagu sameeyana wuxuu yiri war anigu waxaan qabanayaa haddii idin muuqan waa taas oo waan ka tagu yiri maalintii dambe oo la dooranayay sanadkan la doortay wixii loogu mashxaradayay iyo intii gurbaanka loo garaacayay ma ahayn xoolo uu dad siiya ma ahayn cabsi gaar ah laga qabana ma ahayn waxa lagu jeclaa waagii uu shaqada dalka ka qabtay nasiibkiisa ha noqoto raganimadiisa ha noqoto sidii wax isugu bedeleen iyo wixii laga malaysanayay iyo markuu waxaas gaaray farxaddii iyo nashaadkii loo qabay ayaa maalintii dhaweyd oo xilka loo magacaabana loogu dabaaldegay hadda nasiibkiisii uu wataa halkaas markuu soo galay waa u jeedaan dalkaas inuu haddii alla idankeeda leeyahay nabadii oo isbedelay waa u jeedaan dadka uu magacaabay ilaahay baa ku toosiyey ra'iisul wasaaraha rabbaa ku toosiyey gudoomiyaha gobolka ilaahay baa ku toosiyey saraakiisha uu xulay oo ciidamada uu kala bedelay oo ninba meel ka keenay oo intii wax gasho Soomaali xulkeeda uu u dhiibay ilaahay baa ku toosiyey rabnaa inaan laga badin
waxaan rabnaa xaqiiqda inaan sheegno sida aad og tahay dawladdu go-aan siyaasadeed inay qaadatay leedahay oo hadday u aragto masiirka dowladnimada iyo qarannimada inuu maaragtay ku habboon yahay waxaad og tahay inaysan ka hadlin ninkaan dawladdu aysan wax hadal ka soo saarin in laga hor dhacaa laftoodu ma aha wax dadka la gudboon ma aha waxaa weeye dawladda in la sugo go-aankeedii iyo hadalkeedii in la sugo waay oo markaas la sameeyo kabacdi qaynayn oo waxay ku qaldan yihiinna lagu dhaliilo markaas waxaysan ku qaldanayna ku saxan lagu taageero marka in laga hor dhacaa laftoodu waxay u muuqataa inay dagaal meesha aanu ka marayn midda kaleeto sida adinku aad ka warqabtaan dawladdu maxaabiisay keentay fara badan oo boqolaal gaaraya kuwo kaleetana hadda inay soo wadaan looga fadhiyo ay keentaa saasaan khijo badan ka qabnaa daawadayaal sida u aragteenba odayaasha gobolka banaadir ama waxgabarta gobolka banaadir waa ujeedaan si ay uga hadleen arrinka ka taagan baraha bulshada ama dalka Soomaaliya gudihiisa ayaga oo la hadlaya shacabka Soomaaliyeed uguna baaqayay inay la shaqeeyaan dawladooda dalkoodana aysan burburin dawlad la'aan waa mugdi daawadayaal waxaa jira dad badan oo mucaarad ah oo raba inay ka faa'iideystaan dhibka ka taagan Soomaaliya ama arrintan askariga ONLF oo la wareejiyay haddaba inagu haddaynu nahay shacabkeena maxaa inoo gudboon ma inaan dawladeena ku kacno oo sida dadka mucaaradka oo 27 sano ka shaqeynayay arrimaha Soomaaliya burburka Soomaaliya aan raacno mise inaan dawladeena la shaqeyno askari la dhiibay oo Soomaaliya oo ONLF in dalkeena aan u dumino aniga way ila fiican tahay arrinkaas wadanan baa la afgambiyaa madaxweynaha dalka Soomaaliya safar badan ayuu galay oo dalka dibadiisa waxa uu aaday oo ugu dambeysay safarkiisa dalka Masar oo ay soo kala saxiixdeen arrimo badan sida dhanka militariga inuu ka caawin doono dhanka dhaqaalaha khayraadka Soomaaliya ku jira iyo xiriirkii dheeraa ka dhaxeeyay Egypt iyo Soomaaliya ma loo malayn karaa arrimahaas inay keentay dhibka ama askariga iyo khalkhalka dalka Soomaaliya ka jira maanta waa mid u baahan laga hadlo arrimahaas oo dhan waa arrimo u baahan in laga hadlo jawaabaheedana laga helo waxgaradka siyaasiyiinta iyo dawladaheena Soomaaliya sida la socotaanba ra'iisul wasaaraha Soomaaliya wuxuu tagay Itoobiya khayre waxa jira dhilal ay soo kala saxiixdeen baa jiray oo ahaa in laga wada shaqeeyo amniga ay kamid ah qodobkaas oo kamid ah waxa kale oo jirtay maanta hadlay madaxweynaha dawlad deegaanka Soomaalida DDSI Cabdi Maxamuud Cumar oo ku eedeeyay xildhibaanada Soomaaliya iyo wasiirada Soomaaliya in ay dawlad deegaanka gaf ku tahay ereyada ka soo yeeraya fila Soomaaliya Muqdisho dawladda federaalka Soomaaliya ma aqoonsan tahay dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya DDSI hadday aqoonsan tahay seebay u aragtaa ururka ONLF labada su'aaloodna waa mid u taala dawladda federaalka ee Soomaaliya inay ka jawaabaan horumarka ka socda dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya DDSI iyo waxbarashada ka socota ardadeena Soomaaliyeed ayay scholarship siiyaan horumar baana ka jira waxbarasha ka jirta nabad baa ka jirta ruux walba oo Soomaaliya oo tagana waxay la mid tahay asagoo dalka Soomaaliya tagay nabadgelyadeena siday uga shaqeeyaan ayaa loo baahan anaguna inaan uga shaqeyno haddaynu nahay shacabkeena Soomaaliyeed daawadeel waxyaalahaas badan oo aan ka hadalnay waxaa looga baahan yahay su'aalihii meeshaan soo dawladda federaalka Soomaaliya inay ka hadasho oo press release ay samayso innaga shacabkeena Soomaaliyeed waxaa looga baahan yahay inaan dawladdeena la shaqeyno arrimahaasi arrimo badan oo aan ka hadalnay barnaamijkeena maanta intaasoo nagu ekaanaya inta aan dib u wada kulmi doono waa anigoo Liibaan Xasan Quruf waxaan leeyahay sidaas iyo nabadgelyo